iyo UNDP-da UNFPA UNICEF hay-adaha UNCR hay-adaha maxalliga ah ay ka mid yihiin TAS Shilcon Save the Children World Vision iyo Forensic Lab-ka oo ah hay-ad dawli ah oo nagala soo qayb gashay iyadana gabdhaha 8 degmo 8 xaafad ee Garowe gabdhaha 8 xaafad ee Garowe ardayda jaamacadaha ururada bulshada civil society-ga shaqaalaha dadaalka badan ee wasaaradda haweenka consultant-yada wasaaradda haweenka agaasimaheena guud oo waxa kan isku soo dubariday ee wasaaradda haweenka media-da oo mar walba u taagan baahinta arrimaha noocan oo kala ah waxaan idinku salaamayaa salaantu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku faraxsanahay maanta inaanu daha furayno maalinta caalamiga ah ee ciribtirka tacadiyada lagula dhaqmo dumarka oo soconaya muddo 16 casho ah laga bilaabo maanta oo November ay tahay 25 dhammaan doonana ama aan xiri doono bisha December 10keeda 16kaas casho oo soo socda wacyigelinta ku saabsan tacadiyada ku dhaca dumarka iyo gabdhaha waxay ka socon doonaan Garowe iyo gobolada Puntland intay ka kooban yihiin oo 9 oo dhan shaqooyinka ay ugu tala gashay Muqdafa munaasabadan oo kale sanad kasta waxaa looga dan leeyahay inay ku ciribtirto tacadiyada lala beegsado dumarka iyo gabdhaha yaryarka ah waxaan idinka mahad celinayaa ka qaybgelintiina maanta ee munaasabada tan si gaar ah waxaan mahad u celinayaa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba oo naga caawiya mar kastaba munaasabadan iyo kuwa kale oo lamid ah munaasabadan oo looga digo cid walba ku xadgudubka xuquuqda qofeed ee dumarka iyo gabdhahaba siiba tacadiyada ku dhaca laguna tilmaami karo mid lid ku ah xuquuqdooda bini'aadanimo mar kasta codkeenna iyo fariimaheenna ku aadan in laga dheeraado tacaddi kasta oo lagula kaco dumarka ama gabdhaha wuxuu meel dheer gaarayaa markii aan isku duubannahay dadkoo idil iyo hay-adaha garab istaaganba walaalayaal inkastoo Puntland ay ku yaray guulaysatay laga soo bilaabo 10 sano oo ugu dambeeyay in laga soo yareeyo farqiga nololeed ee u dhaxeeyo ragga iyo dumarka haddana shaqooyin badan ayaa looga baahan yahay inay ka qabato arrintaas dawladda iyadoo la kaashanayso hay-adaha caalamiga haween badan ayaa ka liita dhinaca dhaqaalaha iga raali ahaada waxyar please can you shut down your phones or maybe you can silence telefonadiina xira ama aamusiya in order to respect the guest si aan uga maxaa la yiraahdaa u ixtiraamno dadka martida noo ah waa mahadsantiin sorry about that walaalayaal inkastoo Puntland ay ku yaray guulaysatay laga soo bilaabo 10 sano oo u dambeeyay in la yareeyo farqiga nololeed ee u dhaxeeyo ragga iyo dumarka haddana shaqooyin badan ayaa looga baahan yahay inay qabato arrintaas dawladda iyadoo laga kaashanayo hay-adaha caalamiga ah haween badan ayaa ka liita dhinaca dhaqaalaha ama aan u lahayn awood inay helaan dhaqaale xumadaas oo keeni karta dayac uu soo jiida tacadiyada nooc kasta ah nasiib darro guryaha lagu badbaadiyo haweenka tacadiyada ku dhacaan iyo goobaha caawinaada ugu horeysa ay ka helaan weli kama dhisna
ama kuma baahsana Puntland. waxaan doonayaa inaan idinla qaybsado kuna dhawaaqo maanta kaalmada wax ku oolka ah ay bixisay UNFPA iyadoo ah hay'adda caalamiga ah oo ku tillaabsatay inay ka caawinto wasaaradda horumarinta haweenka guri lagu magacaabo shelter-ka haweenka oo ugu horeeyo oo laga dhiso Puntland. waa kii horeeyo Puntland laga dhiso, laguna badbaadin doono haweenka iyo gabdhaha ay ku dhacaan tacadiyada, kaasoo diyaar noqon doono dhammaadka sanadkan 2018 insha Allah. waxaan si gaara ammaanteeda u leh ka sokow madaxda sare ee UNFPA Baxsan Siciid oo ah madaxa UNFPA Puntland iyadoo ka geysatay gacan weyn sidii ay u suurtagelin lahayd. sidoo kale UNFPA waxay ku tallaabsatay inay furto 6 goobood oo gargaarka degdega ah loogu qabto haweenka iyo gabdhaha tacadiyada ku dhacaan, one stop centers, kuwaasoo ku kala yaala Puntland goboladeeda. sidoo kale waxaa si gaara ammaanteeda u leh ka sokow mar labaad madaxda sare ee UNFPA ka sokow Baxsan oo ah madaxa UNFPA Puntland iyadoo ka geysatay gacan weyn siday u suurtagelin lahayd si dhowna uga damqata arrimaha tacadiyada ee ku saabsan haweenka. tacadiyada ku dhaca dumarka iyo gabdhaha ma ahan in loo arko oo keliya ku xadgudub xuquuqda bani'aadanimo ee qofka, laakiin waxay tahay in loo aqoonsado cadaalad darro ka jirta mujtamaca dhexdiisa kaasoo waxyeeleynayo tiirarka qoysaskeena. mowdafa waxay aaminsan tahay in si xal looga gaaro arrimahaas la dhaqangeliyo siyaasadaha iyo shuruucda horey loo soo saaray ee ku aadan tacadiyada dumarka ku dhaca iyo in dumarka iyo gabdhaha horumarin la taaban karo loo sameeyo. intii aan soo saarnay oo shuruuc ah dowladda Puntland ay soo saartay in enforcement la siiyo ama gacan xoog la siiyo si ay u dhaqan galaan, taana way ku yaraan karaan tacadiyada. mowdafa iyadoo ka duulaysa arrimaha kor ku qoran ayay sanadkan 2018 siisay 20 waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah, 20 arday oo gabdho ah kana soo jeeda qoysas sabool ah oo aan awoodin inay gabdhahooda u diraan waxbarasho jaamacadeed, kaasoo gabdhaha siinaysa awood ay uga dheeraan karaan inay dayacmaan markaana tacadiga ku dhaco. mowdafa waxay uga mahadcelinaysaa jaamacadda EAU iyo BSU oo ku tabarucay 10 waxbarasho iyo 10 waxbarasho. ka wacyigelinta tacadiyada ku dhaca dumarka iyo gabdhaha oo aan maanta halkan ka furnay ka furi doono waxaa laga sii dayn doonaa warsido kasta ay mowdafa isticmaali karto iyo sida TV-yada iyo raadiyayaasha oo dhan si loo gaarsiiyo ummadda Puntland oo dhan si ay uga hortagaan cid walba oo geysanaysa arrimahaas foosho xun leh. wasaaraddu waxay aaminsan tahay in si loo badbaadiyo haweenka tacadiyada ku dhacaan loo baahan yahay in la sii xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adaha maxalliga ah iyo wasaaradaha dawliga ah oo taakulada siiya markii qof haweeney ah tacadiga ku dhaco. waxaan doonayaa oo kale halkan inaan ka sheego mahad gaaran aan uga celiyo hay'adda UNICEF oo wasaaradda u dhistay 5 goobood uma dhisine u samaysay 5 goobood oo looga soo xirogeliyo gabdhaha tahriibayaasha ah, dhalinyarada tahriibayaasha ah oo meelay u socdaan aan aqoonin, qaarkoodna tacadiyo ku dhaco markii ay jidadka jiifsadaan. meelahaasoo loogu diyaariyey shaqaale u carbisan inay maskax ahaan iyo jir ahaan iyo shaqsi ahaan ay u barbaariyaan qofka, ay u sheegaan maxaa saxa iyo maxaa qalada.
hadday ka ogolaadaanna ay dib ugu celiyaan familkoodii ama reerkoodii ay dib ugu celiyaan qofkaan doonayna ay u sameeyaan nolol aan tacaddi dhinac socon marka waxaan si gaara uga mahadcelinaynaa UNICEF waxaanan ka rajaynaynaa UNICEF iyo UNFPA inay dadaalkooda sii wadaan intaa waxa wehliya in si hore loo mariyo la dagaalanka tacadiyada ku dhaca haweenka loo baahan yahay shuruuc iyo siyaasado ka shaqeeya horumarka dumarka dhinac kastaba siiba kan waxbarashada oo dhaxalgal weyn u noqon kara dumarka ugu dambeyn waxaan oran lahaa horumar kasta oo loo baahan yahay in loo sameeyo haweenka iyo gabdhaha laguna ciribtiro tacadiyada ku dhaca laguna horumariyo aqoontooda noloshooda guud ahaan si ay uga badbaadaan ku xadgudubka qof ahaaneed waxaa loo baahan yahay in la qoondheeyo sanad kasta miisaaniyad loogu talagalay gabdhahaas si wax loogu qabto gunaanadkayga waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo saaxiibaday ka socda hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah oo la shaqeeya wasaaradda haweenka horumarinta haweenka kuwaasoo naga caawinay xafladan quruxda badan leh waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa maadaama wacyigelintan ka hortagga tacadiyada dumarka oo soconayso 16 casho uu ka dhacayo daafaha Puntland inuu soo yareyn doono hadduusan soo afjarin sidaan jecelnahay nooc kasta oo tacadi ah oo lagula kaco haweenka iyo gabdhaha wasaaraduna waxaa ka go'an inay sii wadi doonto sanad kasta insha Allah waxaan noo wada rajaynayaa inuu noqdo mid wax ku ool ah dadaalka aan ugu jirno ka hortagga tacadiyada dumarka waa mahadsantiin